بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا قحوتي رداب جانل marka maanta waxaan idin hayaa akhbaar ku saabsan kaar furitaanka xeryaha qaxootiga dhaab marka si aan horaan igi sheegnay bis saddexaad in loo shaqeyn doono kaar furitaankii ayaa haddana dib loo bilaabi doonaa berito oo arbace oo ku beegan taariikh 23 bis taariikh 23 bis saddexaad 2021 oo dib loo bilaabi doono kaar furitaanka xeryaha qaxootiga dhaab waxaana laga bilaabi doonaa Ifweyn ayaa berito laga bilaabi doonaa marka qaab loo galay ayaa rabaa inaan sheego dadka loo baahan yahay ardaydii oo inay ardaydii iskuul ku maqnaayeen markii tirkoob u dambeeyay oo maqnaayeen waa inay la yimaadaan warqadooda iskuulka ama sharciga iskuulka ama sida baajka ama aqoonsiga iskuulka ama college-ka waa inay la yimaadaan goobta UNHCR berito hadduu Ilaahay gaarsiiyo in Ifweyn ayaa laga rabaa beri Ifweyn ayaa laga bilaabo markii Ifweyn la dhameeyo kadib waxaa la bilaabi doonaa xaga dheer markii xaga dheer la bilaaban kadib dhagax la imaan doonaa marka insha Allah muuqaalkan dhameystiro si aad ula socoto qodob koowaad waxaan idhahay ardaydii iskuul ku maqnaayeen xilligii tirkoob u dambeeyay markii la galayay ayaa loo baahan yahay inay la imaadaan sababtii ay u maqnaayeen sababtoo ah haddii arday ahaayeen waa inay la imaadaan warqadihii iskuulkooda waa inay la imaadaan ama sharciga ama loo gooyo iskuulka ama loo aqoonsan lahay qodobka labaad waxaa waaye dadkii medicalka case ahay dadkii oo caafimaad ku maqnaayeen oo xanuunsanaayeen goob caafimaad jiray ayakana waxaa lagu baahan yahay inay la yimaadaan warqadooda caafimaadka ama warqada takhtarka u qoray oo ku saabsan inuu qofkaas xanuunsanaay ama takhtar uu ku maqnaay xilligaas ayaa loo baahan inuu la imaado caddeyn ah warqad oo ku socoto takhtarka ama xilliga takhtarka uu jiray warqad caddeynayso xilliga uu xanuunsanaay ayaa lagu baahan yahay inuu la yimaado waa hadduu ahay qof xanuunsanaay oo caafimaad jiray waa inuu la yimaadaa warqadiisa caafimaadka si loo shaqeeyo oo kaarkiisa loo furo marka kaarka si habsami leh ayaa loo bilaabi doonaa oo loo shaqeyn doonaa qodobka labaad haddii aan ku daro waxaa ka mid ah dadkii xabsiga jiray dad waxaa jira xabsiiley ahaayeen oo xabsi ku maqnaayeen ama dembi ama wix loo haysto oo dembi ku maqnaayeen markaas waa inay kala imaadaan maxkamadda warqad caddeynayso oo inuu xabsi ku jiray warqadaas oo xaqiijinayso UNHCR iyo sidoo kale oo xaqiijisay hay'ad u qaabilsan oo u qaabilsan abukaataha u dooda qaxootiga RCK warqad ka socoto ayaa loo baahan yahay inay intaas la yimaadaan marka insha Allah muuqaalka dhameystirsi oo la socoto qodobka saddexaad waxaa ka mid ah dadkii safaaradaha Nairobi jiray oo ku maqnaayeen safaaradahaas oo marka arrimo loo yeeray ama ayka danahooda u aadeen aykan waxaa loo baahan yahay xilligaas sidaas dartoodana u habsaamay kaarkoodii marka waxaa loo baahan yahay in ay la yimaadaan warqadda safaaradda ka socoto in waqtigaas ay ku maqnaayeen safaaradda si loo cadeeyo waa inaad waqtigaas shaqada ay ku qabanayaan warqad ka socoto oo cadeynayso waa inaad la imaataa dadka safaaradaha ku mashquulsanay ama ku maqnaay xilli tirkoobkooda ay rudeen qodobka afraad haddii aan ku daro waxaa ka mid ah dadka sidoo kale oo artiskooda vulnerable oo zaid u bartooda sida camal dadka oo qofka farxumayn loo geystay farxumayn ama si oo loo geystay oo cabsi darteeda cid iska joogay sidoo kale ilmaha dulfuulka ah hooyadooda mise aabahooda kala tageen oo ay kana ilmihii dhaxal qadka ka baxeen sidoo kale ilmaha oo ana ka bened minor oo ilmaha oo waxa la jira hooyadooda aabahooda midna u nooleen oo waxa la jira ilmahaas oo dad kale oo dulfuul ku ah ama dad loo dhiibay hay'adaha samafalka sida hay'adaha carruurta qaabilsan ilmaha meelaha lagu soo tuuray dadka loo dhiibay tirkoobka ka habsaamay dadkaas ayakana waa loo baahan yahay si loo furo kaararkooda marka qodobka afraad haddii aan ku daro waxaa ka mid ah dadkii xanuunsanaayeen oo waayeelka ahaayeen oo xaafadaha sariiraha ku jiifeen ayakana waxaa loo baahan yahay ama curyaamiinta ahaayeen oo waaye tirkoobka oo kasoo qaybgala waayey sababahaas dartooda xanuun ama curyaannimo ama da'nimo ama qof dad maskax loogu jiray ayaa jiraan dadkaas maskaxda loogu jiray dhammaantooda ama dadka xanuunsanaay oo awoodi waayey inay soo qayb galaan tirkoobkii ayakana waa inay la yimaadaan warqadahooda si kaarkooda dib loo furo oo kaarkooda meeshooda laga sii bilaabo marka saas ogaada qodobadii kor ayaan kusoo xusay fadlan haddii aad muuqaalkan mar labaad kusoo daawo si aad wax walba ula socoto marka insha Allah marka qodobadaas intaas ayaa ahaayeen qodobada loo baahan yahay marka Ifweyn ayaa laga bilaabay berito oo ah arbaca ayaa laga bilaabi doonaa waxaana section ayaa loo galayaa section walba section leaderkeeda ayaa warqadaha loo dhiibay sidoo kale hadda waxaa loo gudoomiyaalka ayaa loo dhiibay nin walba magaciisa saddexan waxaa la jira individual numberkiisa detailkiisa dhan way ku qoran yihiin section walba beri waxaa laga bilaabay section A oo Ifweyn ayaa laga bilaabaya marka section A marka taariikhda waxaas dhan sectionada ayaa ka warhayaan marka section A dhamaado section B yaalgala C yaalgala saas marka sectionada dhammaan
oo la dhameeyo waayo sidii tirakoobka loo geli jiray ayaa haddana loo gelaya marka fadlan haddaad dhamaystiratay oo marka ifaweyn marka la dhamaystiro waxaa la aadi doonaa xaga dheer haddana section loo gelo marka xaga dheer lasoo dhameeyo ayaa dhagaxley dib loo soo laaban doonaa marka fadlan saas ogaada dhagaxley u dambayso ifo marka la dhameeyo xaga dheer la bilaabi doonaa xaga dheer markay dhamaato kadib la dhagaxley loo soo guuri doonaa marka dadkii reer dhagaxley fursad weyn ay sii haystaan baryaha nasiibta ay saamaxayo waqtiga oo meelaha wax ka socdaan ay warqadahoodii waxooda ay isku dibareedin karaan warqadahoodii waxooda ayay dib isku sii rudan karaan marka insha Allah saas ogaada haddana qodobka aan ku daro dadka loo baahan yahay ardayda iskuulka ku maqnaayeen iyo sidoo kale dadka xanuunsanaayeen oo warqada caafimaad isbitaal caafimaad ama goob caafimaad oo ku maqnaayay xilli tirakoobki warqadihii cadeynaya taqaatiirta ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad waxa way dadkii oo xabsi leytu ama xabsi ku jiray oo ama case loo haastay xabsi ku maqnaayeen xilli tirakoobku u dhacay tirakoobku dambeeyay 2021 tirakoobku dambeeyay ayuu ahaa dadkii ka habsaamay oo xabsi ku jiray waxaana laga rabaa warqad ka socota UNHCR iyo sidoo kale RCK oo qaabilsan xagga dawladda xagga xabsiga u qaabilsan inay warqad kala imaadaan sidoo kale dadka ku mashquulsanayeen safaaradaha oo arrimahooda u aadin ama safaaradaha u yeereen oo Nairobi ku maqnaayeen xilligaas aytan waxa lagu doonayaa warqadihii safaaradii ku maqnaayeen oo cadeynaysa in safaarad ku maqnaay ay laga rabaa qodobka afraad waxa kamid ah dadka oo zaid u liito ama dadkii sidoo kale ama farxumeen ama wax loo geystay oo sidaas darteed xilligaas ku soo qayb gal waaye ilmaha dulfuulayaalka oo ay tara sababo haddii haystaan sabab macquul gal oo taartooda ugu xirmay ilmaha sidoo kale maxaa la jiray oo waalidiintooda dhammaantood aan nooleen oo qafna cidna la joogin oo haydana dad u dhiiban ayaa la rabaa qodobka afraad waxa kamid ah dadkii waayeeladii xanuunsanaayeen ciddooda joogin oo sariiraha ka soo kici waayay dadkii naafada si ay ahaayeen dhammaantood ayaa imaanaya